بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani warbaahinta xulka wararka kusoo dhawaada warka warbaahinta qodobada aan idin heynana waxaa kamid noqonaya Mareykanka war xasaasi ah ka soo saaray doorashada dowlad goboleedka Jubbaland iyo tan federaalka oo dhacaysa 2021 maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta xukun ku riday nin u dhashay dalka Britain oo lagu helay falal ka dhan ah amniga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay bilaabeen kulamo looga arinsanayo qaabka loo sugayo amniga magaalada Muqdisho kulan golaha wakiilada maamulka Somaliland ee ku yeelanayeen magaalada Hargeysa oo maanta waxaan buuq fara badan hareeyay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo maanta laga saaray xarakada Al-Shabaab iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi laga dareemayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo bedelay mowqifkiisii hore qaadayna tallaabo xasaasi ah dibaddana waxaan idin kaga haynaa dowladda dalka Iran oo ku dhawaaqday in dagaal dalkeeda hadii uu galo caalamka oo dhan ay saameyn doonto qodobada ay daawad doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 8 bisha 8 Agoosto 2019 saaxiibayaal diyaar garooba daawashada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan channelkan xulka wararka subscribe si aad u heshaan iyo warbixin xasaasi ah aynu ku bilownay Mareykanka ayaa waxa war xasaasi ah ka soo saaray doorashada Jubbaland ee bisha Agoosto dhacaysa iyo tan federaalka oo dhacaysa 2021 war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ugu horeyntii waxaa looga hadlay socdaal uu shalay gelinkii dambe ku yimaaday gudaha dalka Soomaaliya kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka waxaa halkaasi kulamo kala duwan uu kula qaatay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka u qaabilsan dhinaca siyaasadda waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre kulan kula qaatay magaalada Muqdisho waxaana marka hore ay isla xaqiijiyeen sida dowladda dalkaasi Mareykanka oo go'an tahay inay Soomaaliya ka taageerto isbeddelka siyaasadda horumarinta dhaqaalaha iyo dhanka xasiloonida Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa warbixin ka siiyay horumarkii ugu dambeeyay ee dhinaca Soomaaliya kaga tilaabsanaysay siyaasadda nabadgelyada Soomaaliya iyo dadaalka xaaladaha dinacafinta Soomaaliya si loogu bilaabo in Soomaaliya loo ogolaado inay amaah ka qaadan karto hay'adaha maaliyadda caalamka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka u qaabilsan dhinaca siyaasadda waxaa kale uu kala hadlay rajada ay dowladda Mareykanka ee ku aadan inay doorasho lagu kalsoon yahay ka dhici karto deegaanada Jubbaland oo bisha Agoosto la qorsheynayo doorasho ka dhacdo iyo tan 2021 Soomaaliya ka dhacaysa waxaa kale uu dhiirigeliyay horumarka geedi socodka ee horseedi kara in doorasho qof iyo cod ahi ay ka dhacdo Soomaaliya 2021 ugu dambeyntii qoraalkani ka soo baxay xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaa lagu muujiyay in xogayaha Xasan Cali Khayre ay isku raaceen qiimaha howlgallada amniga ee lagula wareegayo deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya diyaar garowna buuxda la geliyay ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo kaabaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya si Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya Mareykanka ayaa waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ka taageeraa dhanka horumarinta tababarka iyo tayeynta ciidamada iyo dhaqaalaha waxaana Mareykanku haatan uu bixinayaa dadaalo ku aadan sidii doorasho qof iyo cod ay Soomaaliya ka qabsoomi lahayd maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxay dambi culus ku heshay ninkii Britain-ka ahaa ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kaasoo lagu eedeeyay inuu qalqal gelinayay ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta go'aanka madambeysa ka qaadatay kiiska loo haysto nin u dhashay dalka Ingiriiska kaas oo lagu soo eedeeyay qalqal gelinta amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ninkan waa 48 sano jir waxay maxkamaddu sheegtay in lagu helay qodobka 34 ee xeerka nabadgelyada qaranka sidoo kale waxaa maxkamadda gobolka Banaadir sheegtay in ninkan lagu waayay labo dambi oo lagu soo eedeeyay ugu dambeyntii maxkamadda gobolka Banaadir ninkan waxay ku xukuntay inuu bixiyo ganaax lacageed oo dhan $7,000
dalka Mareykanka ahi. Ciidamada ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa bishii tagtay waxa ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kasoo qabtay ninkan waxa uu watay 7 qasnadood iyo jaakadaha aan xabadu karin xilli uu doonayay inuu safro dalka Istaga Imaaraadka Carabta. Ninkan u dhashay dalka Britain sidoo kale waxa uu dhalasho ka haystaa dalka Faransiiska waxaana uu la shaqeyn jiray shirkadda SKA ee mar gacanta ugu hayn jirtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cuthmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ma ahan markii ugu horeysay oo gobolka Banaadir maxkamadiisu ay xukun ku rido nin ajnabi ah waxaana horay maxkamadan loo soo taagay shakhsiyaad badan oo ahaa ajaanib kuwaasoo qalqal gelin amni lagu helay. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland waxa uu aqbalay go'aano AMISOM kana laabtay go'aanadiisii hore. madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyntii aqbalay in doorashada lagu qabto xarunta qaramada midoobay ee ku taala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib kulan gaar ah oo la qaatay taliyaha guud ee ciidamada AMISOM. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sidoo kale ogolaaday in amniga doorashada lagu wareejiyo ciidamada booliska AMISOM oo kaashanaya kuwa Jubbaland sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha ammaanka maamulka Jubbaland oo ku sugan magaalada Kismaayo. Saacadaha soo socda ee maanta ayay ciidamadu la wareegi doonaan goobaha doorashada iyadoo haatan dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo gudaha magaalada Kismaayo. Arrintan ayaa waxay horay uga soo horjeestay dowladda Soomaaliya iyadoo dalbatay in doorashada lagu qabto xarunta UN-ka kadib cabasho ka timaaday qaar ka mid ah murashaxiinta maamulka Jubbaland. Dowladda federaalka Soomaaliya intaasi waa ay ku gacan saartay maadaama hogaamiyaha Jubbaland uu ka dhiga cuslaystay. Sidoo kale qaar ka mid ah murashaxiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay soo dhaweeyeen talaabadan AMISOM ay kula wareegtay amniga doorashada Jubbaland. Doorashada ayaa la filayaa in la qabto isla bishan Agoosto iyadoona qabanqaabadii ugu dambeysay laga dareemayo magaalada Kismaayo walow ay jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah murashaxiinta u loolamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaana eedeyn ku jeedinayaan hogaamiyaha haatan maamulaya talada Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxayna sheegayaan in doorashada Jubbaland uu afduubtay odayaasha dhaqanka qaarkood. waxaa la sheegayaa inay isaga soo baxayaan magaalada Kismaayo qaarkoodna Axmed Madoobe lagu eedeeyay in uu dil u geystay oo magaalada Kismaayo uu ku dilay. dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa waxay bilaabeen kulamo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab. dad badan ayaa ilaa haatan waxa ay ka daadegila in gudoomiyihii gobolka Banaadir hana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cuthmaan injineer Riso way dileen xarakada Al-Shabaab waxaana sii kordhaysa shakiga iyo tuhunka arrintaasi ku saabsan. dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho isla markaana aqoon-yahano ahi ayaa bilaabay kulamo arrintaasi ay kaga arrinsanayaan oo xaaladda amni ee dalka garaan magaalada Muqdisho kaga shirayaan. dhalinyaradan ayaa sheegay inay dadka ku nool magaalada Muqdisho ay wajahayaan beegsi gaar ahi iyo in la dabargooyo aqoon-yahankooda waa sida ay hadalkooda u dhigeen. arrintan ayaa u muuqata kacdoon aan weli soo ifbixin waxaana xooga lagu saarayaa badbaadada dalka gaar ahaan dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in arrintan ay sii laba jibaari doonaan aysanna dalkan u fiirsan doonin xaaladda uu ku jiro. odayaasha ayaa waxay ugu baaqeen inay wax ka bedelaan qaabka haatan ay ula dhaqmayaan dhalinyarada waxayna sheegeen wax walba oo la sameynayo laga talageliyo dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. gudahaan warka ka daawanayseen warbaahinta xulka wararka saaxiibayaal intaas ayaan kusoo koobayaa nabadgelyo.